بسم الله الرحمن الرحيم مقرب ونكسن دمانتين halkani waa Horn Peace Prize Daily News Mukhtaar Bashiir Aadan waxaad la socodsiin doonaa maanta barnaamij ku saabsan cagaarinta dhirta la socod wanaagsan barnaamijkan gaarka oo ku eegayno cagaarinta dhirta ayaanu si gaar ah idin la socodsiin doonaa dhageystayaashanada ku taxan bartaan ku leenahay YouTube-ka inta soo la socda Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa shacabka Itoobiya ugu baaqay in guud ahaan wadanka laga bilaabo barnaamijka cagaarinta dhirta. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa bulshooyinka Itoobiya ugu baaqay in guud ahaan wadanka laga bilaabo barnaamijka dhir beerista. Sidaas daraadeed Ra'iisul Wasaaraha ayaa shacabweynaha si guud ugu baaqay in wadanka laga bilaabo barnaamijka dhaxal reebka cagaaran ee dhir beerista ee wareegga afraad. barnaamijkan oo loogu magac daray dhaxal reebka cagaaran ee dhir beerista Itoobiya ayuu Ra'iisul Wasaaruhu si guud ugu baaqay dhammaan shacabka Itoobiya inay si ballaaran uga qayb qaataan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa maanta daahfuray si guud barnaamijkan cagaaran ee dhir beerista Gulaale ee magaalada Addis Ababa soo ku daahfuray magaalada Gulaale ee Addis Ababa munaasabadan dhir beerista ayaa waxaa ka qayb galay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Haile Mariam Desalegn, madaxweynihii hore ee Dr. Malato Toshume, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Damaqa Makonnen. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa bilaabay barnaamijka inuu qof walba labadii biloodba uu 100 geed ku beero. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in sanadkan dalka oo dhan la rabo in laga beero 20 milyan oo geed halka 3 sano ee hore la beeray 18 milyan oo geed. intaasi waxaa ku kooban barnaamijkii maanta aan ku eegaynay dhir beerista. sidaas daraadeed la socod wanaagsan Mukhtaar Bashiir Aadan, Horn Peace Prize Daily News. waad mahadsantihiin kala wanaagsan.